wafdigii balaadhnaa ee ka socday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada dowlad deegaanka ee Soomaaliland u mid ka qaybgalka aaska qaran loo sameeyay marxuun Xaaji Cabdikariin Xaaji Cabdiwaraabe waxaana wafdigaasi oo maanta dib ugu guriyo noqday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa intii ayna ka gudbin xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa halkaasi ku sii sabootiyay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Soomaaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland barsaab ku-xigeenka gobolka Muradjeex mayor ku-xigeenka caasimadda Hargeysa iyo maamulka degmada Togwajaale waxaana wafdigan dowlad deegaanku ka mahadnaqeen hanaankii iyo habkii loogu qaabilay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxay ka mahadnaqeen Cali Sharaf oo madaxweynaha qaranku habeenimada xalaheed ku maamusay ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Soomaaliland Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil wasiirka madaxtooyada wasiirka tacliinta sare wasiirka ku-xigeenka madaxtooyada iyo la-taliyaha madaxtooyada iyo odayaal garaado iyo salaadiin ka socda ee dowlad deegaanka u yimid inay ka qayb galaan tacsida loo naxariistay Xaaji Cabdikariin oo inuu barnaamijkaasna Hargeysa waxaan leenahay wafdiga sii dhawaada annagana sharaf noo haynaan marka hore soo dhaweyno maantana aan soo sogotino labada kale shacabka Soomaaliland iyo dowlad deegaankuna waa laba shacab walaalo ah كل حرير كنا هالكاس كسي سعنيا. سكر وحالكاسي كهذلي وأفكار دولة ديجان كقولي وزيرك وزارة مدحتوري دولة ديجان كصوماليدا. ما ضو حد بقص والله عني تعصيدي ياسكي حاج عبد الكريم حسين يوسف حاج عبد الورابع وحنا نسوس الوتيي وزيرك إسكارسين تيجي تكنولوجيا من عبد الولي يوفتي وهو جامين يكمل هما يحتاجين كان مقالة هرقيسة يوحنا الصعدة يقاسمي البلد حتى دي waxaan ugu soo laabanay magaalada Wajaale taaganahay dhinaca Itoobiya ayaa taaganahay si nabadgelyo ay hawshaas ku soo dhamaatay waxaan kulli aad uga mahad celinaynaa madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi iyo shacabka Soomaaliland iyo dawladdiisaba oo si aad heer sare ah ugu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa martaqaadiyo kala duwan loo fidiyay intaan joognayna aanan dareemin haba yaraatee وحوي الضغطي iyo qala aan dareemin laakiin ay ahayd hoyga nagi labaad aan joognaan dareemaynay adiga iyo waftiga ila socday ee madaxda iyo xukuumna waxna qameediyada labadaba marka waxaan u mahad celinaynaa si guud Soomaaliland shacabkeed iyo dawladeeda waan mahad celinaynaa si waxaan leenahay hadda wixii ka dambeeyana saa iyo si qurux badan oo bay hawshu noogu socon doontaa laba shacab oo walaalo weeye labadoodan kala maarmayn weeye hadda wixii ka dambeeyay insha Allah dhinacan iyo dhinacanba xuduudu waxa weeyaan waa magac inoo yaala oo kulay waa protocol demarcation weeyaan laakiin ma ahaanin wax dadka kala celinaya ma ahaanin sababtu way u socon doontaa hadii la yiraahdo aad baad u mahad tan iyo intii ka dambeysay kulankii lamada madaxweyne ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland ay ku yeesheen magaalada Togwajaale dhinaca Soomaaliland ayaa waxa kulankaasi ka dhashay cilaaqaad aad u wanaagsan waayaan la xaji telefishinka qaranka Wajaale.